السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود وهذا دمانتين ومرك له إيو channel كيني وأنكم بحين دونا maanta صدح qodob oo qof kasta oo shaqaala uu baahan yahay saddex qodob maxay yimaad isweydiinna daba si kooban baynu u dulmari doonaa balbalaarintii faahfaahinta adaas ka sii faahfaahsan doona qodobka koobaad wuxuu noqonayaa ilaalinta waqtigu waa muhiim company kasta iyo shaqo kasta oo aad qabanaysid inaad waqtiga ilaaliso waa koomay qodobka labaad wuxuu noqonayaa in aad leedahay dhaqanka ah aamusnaanta markaan ku leeyahay yani inaad iska aamusan tahay maaha laakiin waa in wax weeye hadal badan aadan isku mashquulin hadalkaaga oo markasta ee yaraada wuxuu keenayaa ixtiraam idii dhex yimaada adiga iyo shaqaalahaada wada shaqaynaysaan adiga iyo maamulkaada wada shaqaynaysaan adiga iyo macaamiisha aad u shaqaynaysid markaan saa ku leeyahay waxaan meesha ku jirin yani dee iska aamus aan macnaha samaynayn inaad iska aamusnaatid qodobkaas isaguna wuxuu muhiim u yahay in rankskaaga iyo ixtiraamkaaga shaqada dhexdeeda u wanaagsanaado qodobka taasoo raacaya saddexaad waxa weeyaan inaad hal abuur la timaado oo qof hal abuur leh wax abuuri karaya aad noqoto in aad noqoto qof shaqada inta loogu asteeyay ee loogu talagalay ka adag oo qaban karaya oo wax weeye aan uga baahnayn cid kale caawimaad wixii talo iyo tusaale adiga iyo maamulkaaga adiga iyo shaqaalaha kale adiga waxaas waa meesheeda laakiin shaqada inta lagaaga baahan yahay inaad ka adag tahay taas waxay keenaysaa qadarinta iyo ixtiraamka lagugu hayo shaqada dhexdeeda inuu siyaado waana sababta inta badan keentaa qofku inuu sameeyo dalacaad ama wax weeye uu meeshuu joogay markaa shaqada ka bilaabay koriga sii siyaado saddex qodob waxay ka qayb qaadanayaan inaad shaqadaada maalinlaha hagaajiso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.